way darsigan maanta waxaynu ka eegi doonaa sida loo ogaado routerka passwordka uu kusoo degay. macnaha markaan leeyahay passwordka uu kusoo degay waxaan ka wadaa markay shirkaduhu soo sameeyaan routerada waxay leeyihiin noocyo kala duwan sida kan D-Link ee nimanka isticmaalaya oo kale. waxaa jira mid kaloo Asus shirkada la yiraahdo soo samaysay. way badan yihiin, aad bay u fara badan yihiin, saynu arki doonaa qaar fara badan oo kamid ah routerada. haddaba waxaynu eegaynaa routerka shirkadu markay soo samayso password default bay kusoo xidhaa, macnaa password caadi iyo shirkadu ay kusoo xidhay marka hore. D-Link waxaa lagu yaqaanaa admin bay ku xidhaa, balse shirkadaha kale way kala duwan yihiin. haddii routerkaagu aanu D-Link ahayn dabcan waxa laga yaabaa inuu ka duwanaado. markaas inagoo ku eegayna website aynu ku ogaanaa defaultiga passwordka ah ay shirkad kasta kusoo samaysay. oo tusaale ahaan imika router kasta oo wadankeena waxaa lagu galaa numberkaas halkaa kaaga muuqda 192.168.1.1 oo dhibcahaas u dhaxeeyaan 192.168.1.1. dan markaynu imika numberkan enter siino waxa uu inoo soo dhigayaa username iyo passwordkii lagu galayay. waa kaas kaynu ku ogaanay rasmiga ah ee shirkad kasta ay soo samaysay. D-Link waxay dabcan lagu galaa keedida admin iyo admin, laakiin sida routerada kale haddii ay ka duwanaadaan aad u gelaysaa. waa kaa keen darsiga ku eegayna. haddaba si aad u ogaato routerkaaga passwordkiisa waxaynu booqanaa website-kan la yiraahdo routerpasswords.com. markaynu soo galno halkan waxaad aragtaa dabcan waa select box. waxaad ka dooranaysaa routerkaaga nooca uu yahay ayaad dooranaysaa. haddaba si aad u ogaato routerkaagu nooca uu yahay warqad ayaa la socota routerkaaga dhakada kaga dhigsan ama mid caadi oo buug oo la socda oo kuu sheegaya marka ugu horeysa shirkada soo samaysay. markaad shirkada hesho mar labaadka waxaad u baahan tahay in aad haysato ID code numberka uu iska leeyahay routerkaaga. tusaale ahaan D-Link waxay leedahay routero fara badan oo kala duwan yihiin numberadooda code numberkooda ama model numberka ayaan ujeedaa oo warqada xagga ugu dambeysa ee routerka kaga dhigsan aad ka heli doonto. marka waa muhiim inaad numberka garato marka hore oo warqad ku qorato. kadib waxaad doonaysaa routerkaagii ee soo doonaysa tusaale ahaan D-Link routerka D-Link kadibna find password baad ku dhufanaysaa hel passwordkiisa. halkan saad aragto wuxuu kusoo dhigayaa model number fara badan waana kayn leena waana taqaanaa modelkan routerkaaga. imika routerkaygan modelkiisu waa admin waa ka waa DSLG 6640 noocaas weeyaan. marka username passwordkiisu waa admin balse hadhow adigu iska bedeli kartaa usernamekii passwordkii waa iska bedeli karaysaa oo iyagana waxaynu kusoo qaadan doonaa xalqad dambe. haddaba faa'iidada darsigan aynu soo qaadanaa waxa weeyaan waxaa jira routerro fara badan oo la garan waayo oo cusboonaanta iyo aan hore loo aqoon darteed ayay keenaysaa in la garan waayo admin usernamekii iyo passwordkiisii. markaas simple website-kan isticmaalaysa adoo ka dooranay tusaale ahaan giga kaa weligay maynaa maqal inoomanu iman wadankana ma imaado. haddii se aad u baahato kuu yimaado gurigaaga soo gaadho waad ku dhufanaysaa keliya find password baad leedahay. kadib model numberkiisa ayaad baadhaysaa. kan imika tusaale ahaan suu inoo soo dhigay shirkadu waa hal model bay samaysay. waa modelkii weeri usernamekiisu administrator passwordkiisuna waa admin. haylaawin inaad ka qayb qaadato kanaalkeena si aad u hesho waxa cusub, sidoo kale inaad akhrisato boostooyinka cusub adoo ku biiraya bloggeena muxtarif iyo inaad Facebook pagekeena kusoo biirto.